أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذا إسكاله الله سبحانه وتعالى وحنقولون ما نعلن يا ذات سوق القابي كلك إيو لما موجود الصوماليين تاجفتي إن رسول سناق يعين أي بلابان وضع السوق وأنا مسناهي ضد الصوماليين تود كلام يساهي إلى تاي فرصة عالية أو ما نتينه بلابا وحكموا لستين هدياتي رسول يسناقي عين إن ما نتي أن لو ركرني مجا الصوماليين وحصومالي اللي هذا ما نتي مجد سببت وحيد هاي رسول سناقي عين وبقولكيبا كنتم أما لحدا وحي الصوماليين أي كوكب ناجرتي سيداس درادة حدي أيوم وأنصدين إن أي كإستاجان صوماليين هالكاس يكون معطي مقعي كمان لبعين أما يستقل أنا لبعين أما معك أنا لبعين وحنا معنا كل دولة تاس وحنا هذا الكيب وقومي بسنين وكجيلو ولا لهنا يسار ما دام صوماليين أي بحدي صوماليين سجلين إن الله هذا ولا لهنا يسار waxaan ku leenahay saadabtiinba isaa marka ay barayaan nacaybka Soomaaliyeed ilmahooda marka ay leeyihiin waa go'ayna waxay sabab uga dhigaan in la xasuuqo kulligii waa doctor waxaan rabnaa walaalahayna isaa inaan u sheegno xasuuqa dawladdaas iyada ay samaysay qabaa'il badan ayaa ayaga ka darnaa oo sida ayaga loo xasuuqay ka badan loo xasuuqay marka aan magacaabo waxaa ka mid ah qabiilka la yiraahdo Reexaaj Saleema iyo Majeerta intaba waxa suuqday dawladda iyaga maantana ma arkaysid Reexaaj Saleemaan ama Majeerteen oo diidan Soomaalinimo ama oranaya waa goosanayna ama baraya ilmahooda cadaalad soo waxaan ku leenahay sida daraadeed walaalahayna isaa ujeedada ka dambaysa go'itaankiina inaad doodaan sababta aad iskaga dhaarciseen malaha wax raad iyo sar dhibaatada Soomaaliya soo gaartay iyo qayb ka ahaydeen nacaybka aad ku beerisaan ilmihiinana waxa uu keenay maantay inaad dinkii burburtaan waxaa la sheegay qisa cajiiba dawladaha gaalada ee ay ka raadiyaan macaawinada ayaa kuwa ka midii waxay yiraahdeen Soomaaliland ciidamadooda waxa ku jira waa berigii Soomaaliland jirtay waxa ku jira argagixiso ninkii janka ahaa ee ciidamada haystay ayaa wuxuu yiri xagee uga jiraan ciidamadoodu ma badukadaan waxaad fahmi kartaan marka meesha diintii ay ka tageen sida isu weeqeen kala noqoshada Soomaaliya inay kala noqoto waxay keentay halkaas diintooda inay tagto waxaan leeyahay reer walaalaheen isaa waxa idin taala laba waddo mid ka mid ah koow inaad reer Sool iyo Sanaag faraha ka qaadaan oo aad uga baxdaan dhulkooda ciidamadiina ka qaadaan uga baxdaan dhulkooda oo ay annaga jecel walaalaheen yihiin ay nala midoobaan oo aysan Soomaali ka tagin annaga u baahan hada adigu waa xabad ku wada jooska labaad oo idin yaala wuxuu yahay in aad soo raacdaan ayagoo iska dhaaftaan Soomaalidnimada oo aad miiska wada hadal soo fadhiistaan oo Soomaali sidaas ay ku midoob waxaan ballan qaadaynaa haddaan Soomaali dhammaanteen aan nahay SSC iyo dhammaan Soomaalida kaleeto inaan weligii go'ayno Soomaali ka go'ay weligii aqoonsi aan helin waxaan rabaa qodobkan inaan la hadlo Soomaalida kale khaasatan dadka la yiraahdo Irid Soomaali walaalaheen Irid waxaa badatay dad madakooda aan anagu ugu yeerno qalbi qabiil oo aan u jeedin midnimada Soomaaliyeed balse siya taageero isaaq because of inay Irid yihiin waxaan leenahay walaalaha sidaasa taageeradaadii waxaa dhigta meel qaldan waxaa taageero kaaga baahan qofka u dagaalamaya qofka u taagan Soomaali inay mid ahaato waxaa taageero kaaga baahan reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn baa taageero kaaga baahan waxaan leenahay Soomaalida dhammaanteedba oo qabiil ahaan aad moodo inay ugu dhawaanayaan isaaq walaal qof rabo wadankaaga inuu dudubiyo diintaada ka hor yimaado ilmahaaga uu duleeyo ha taageerin weliga taageeradaas waxaa iska leh reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn iska waxaan intaa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo maadaama waqtigu uu iska gaaban yahay waxaan siinay waraysi ayaan waxaan siinay foreign presence ama media afka qalaad ku hadla waxaan u sheegnay sida tan there is
no more Somaliland. There is a Sabland and there is an SSC. waxaad ogtihiin in ka badan oo idinka kamida waxaana qof aad taqaanaan siyaasadda iyo meel ay taagan tahay waxaa laga yaabaa qaarkiin ay isku diisaan Sufyaan Sheekh Axmed iyo xisbiga tala ku nool maanta calanka iyo taagan laakiin calanka qadeedu ma maanta waa midnimada Soomaaliya dibna iguma hayo maanta maadaama aan ka hadlayno midnimada Soomaaliya waxaan rabaa dhammaanba shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan qof kasta oo xafladani ay gaarto inuu tan oo kale ololeeyo inuu isu taago midnimada Soomaaliya intiina bad waxa laga yaabaa inaan fahamsan laakiin maantay waxa ay sameeyeen SSC waa fursad dahabiya waa dhamaadkii waa bilowgii dhamaadkii kala qaybsanaanta Soomaaliya bilowgii dhamaadkii kala qaybsanaanta Soomaaliya waa maasantii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh